buuraha Florence ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Waxaa halkaas ku noolaa Desmond iyo walaalkiis Hall iyo qoyskooda oo ahaa qoys diintooda aad ugu dhagan. Hooyadiis oo lagu magacaabo Bertha iyo aabihiis oo la yiraahdo Tom, kaas oo ahaa askari hore. Aabihiis sida uu dagaalkii hore uga soo laabtay xaaladiisu ma deganayn, qoyskana si fiican ulama uusan dhaqmi jirin. Desmond iyo Hall waxay waqtigooda inta badan ku qaadan jireen fuulista buuraha iyo dagaalanka dhexdooda. Maalin iyaga oo istagaalaya ayaa Desmond walaalkiis waxa uu ku dhuftay dhagax. Walaalkiisna waa uu dhiman gaaray. Falku ku sameeyay walaalkiisna waxa uu ka dhigay in uu aad uga murugoodo. Hooyadiis ayaana xaaladiisa dejisay waxayna u sheegtay dambiga ugu foosho xun ee qof sameeya inuu yahay dilka. Markii laga soo wareegay 15 sanadood oo kaamil ah, Desmond oo ku dhex jira kaniisad ayaa waxa uu arkayaa nin galay shil gaari. Waxa uuna ka qayb qaatay gargaarkiisa degdega ah.